بسم الله الرحمن الرحيم وانكو سلامي داوودي soo dhawow aan ku soo gudbiyo wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan xaaladda gobolka Awdal iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo ciidan oo si weyn looga dareemayo gobolka Awdal ciidanka beesha Ciise oo wata dabaabaadka iyo gaadiidka dagaal ee aadka u dheereeya ayaa dhowrkii saac la soo dhaafay waxa ay ka soo tallaabeen dhinacaas iyo gobolka Awdal andhahe gobolka dawlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan Buurta City iyaga oo soo galay dhinaca magaalada durdur oo ku taala xuduudda oo dhinaca Soomaaliland soo xigta gaadiid dagaal ayay wataan iyo qoryaha durdur u dhaca ciidanka beesha Ciise waxaana xogaha la helayo ay tilmaamayaan in laga cabsi qabo in saacadaha soo aadan ay weerar culus ka fuliyaan meelo ka mid ah gobolka Awdal sida ay tilmaamayaan wararka halkaas laga helayo saraakiil sarsaro oo ka tirsan ciidanka maamulka Ciisuhu waxay tilmaameen in ujeedadoodu hadda aysan ahayn in ay cid gaara weeraraan laakiin gardarrada ka imaanaysa militariga Somaliland aysan u dul qaadan doonin iyagoo sheegay in wax walba oo ka hortaagan inay duulaan qaadaan aysan xilligan jirin dadka arrimaha la socdaahi waxay leeyihiin madaxweynaha Somaliland ayaa maalin ka hor la hadlay ugaaska guud ee beelaha Ciise wada hadalkana wuxuu ku soo dhamaaday fashil iyo is-afgaranwaa iyada oo la sheegay in kulankii halkaasi ka dhacay dabcan lagu kala tagay ujeedada ugu weyn ee kulanka keentay in lagu kala tagana waxay ahayd sida ay wararku tilmaamayaan markii ugaaska guud ee beelaha Ciise uu si cad u sheegay in uusan aqbalin isla markaana uusan yeelayn waxa ka socda gobolka Awdal oo uu sheegay in ciidanka beesha Ciise ay mar walba isdifaaci doonaan Somaliland aysan waxaasi ka yeeli doonin xogtu markii halka marayso waxa la sheegay in ay jirtay aragti la xiriirta sida loo xallin karo khilaafka iyada oo ugaaska guud ee beelaha Ciise uu si cad u sheegay in aysan aqbali doonin wax walba oo ku saabsan dulmiga ka imaanaya dhanka Somaliland markan waxaad moodaa inay dagaalka toos u soo gashay oo ay xaaladdu hadda marayso meel aan waxba laga qaban karin dadka arrimaha rogroga waxa ay leeyihiin 48 saac la soo dhaafay aragtida la xiriirta in la arko ciidanka maamulka Ciisaha oo dagaal qaadayahi waa kuwa afka caaradooda saaran sabab la xiriira laga cabsi qabo dagaal foolka fool ah oo ay ku qaadaan gobolka Awdal beeshii Samaroon ee dagaalka dhowr jeer la gashay ciidanka Ciisaha ayaa laftirkoodu la soo warinaya dhinacooda inay wadaan wax u eg abaabul waliba abaabul ma aha abaabulayaal bay wadaan oo magaalada la yiraahdo Boorama waxa xalay kulan gaar ah oo waliba saacado badan qaatay ku yeeshay asgar la sheegay inay ka tirsan yihiin ciidanka beesha Samaroon iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka waxaana kulanka la sheegay in diiradda lagu saaray arrimo waaweyn oo masiirka mustaqbalka gobolka taabanaya Ciisaha iyo Samaroonka markaad eegtid labadooduba waxay wadaan dhaqdhaqaaqaasi dabcan lama ogo halka uu xaaladiisu ay tahay laakiin dadka arrimaha la socdaahay waxay leeyihiin dhaqdhaqaaqa noocaana ma ahan mid hore loo arkay waa mid hadda ku cusub oo ay dad badan aaminsan yihiin inuu xaaladda dab kale ku shidi doono haddaan la helin xal degdeg ah suldaanka guud ee beelaha Samaroon dhawaan uu ka baxay magaalada Boorama dib ayuuna ugu soo laabtay taasi oo dabcan ku tusinaysa in dhinacyadu dhaqdhaqaaqyada ay wadaan hadda uu gaaray meeshii ugu sareysay oo xataa laga cabsi qabo inay dhinacyadu toos isku fara saaraan haddaan la helin xal degdeg ah oo xaajadaasi lagu soo afjarayo sida ay dad badan aaminsan yihiinna dhowrkii bil ee la soo dhaafay dhaqdhaqaaqa la xiriira gobolka wuu sare maray oo xaaladdu mararka qaar xataa waxay gaartay meel aan waxba laga qaban karin markana wasaaradda difaaca dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dhowrkii saac la soo dhaafay waliba saaka aroortii hore iyo barqanimadii maanta waxaa laga saaray gaadiid dagaal oo u badan gaadiidka la yiraahdo cabdibilayaasha taangiyo iyo sidoo kale gaadiidka askarta qaada kuwaas oo la sheegay inay u jihaysan doonaan furimaha dagaalka gobolka Gadow ama gobolka Jubbada Dhexe sida ay tilmaamayaan muuqaalo aan goordhow helnay wasaaradda difaaca Soomaaliya ayaa laga saaray gaadiidkaasi sidaas lamida waxa uu heliya askar fara badan oo tababar ku soo qaatay wadanka Azerbaijan iyo sidoo kale wadanka Turkiga sargaal sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ciidankan ay yihiin kuwa loogu talagalay la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ha yeeshee warar kale oo ka madax bannaan hadalka sargaalku waxa ay muujinayaan in dawladdu ay rabto isku day kale oo ay ku weerari karto gobolka Jubbada Dhexe ama gobolka Jubbada Hoose maamul goboleedka Jubbaland
inkastoo dowladda Soomaaliya ay ku adkaysanayso inay qaadayso duulaan ka dhan ah kooxda Al-Shabaab haddana dadka rogroga arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan inuu jiro mowqif kale oo ka duwan oo ah in dowladdu ay damacsan tahay inay weerarto dowlad goboleedka Jubbaland waana hadal haynta ugu badan ee baraha bulshada ku jirta iyadoo oo waliba lagu soo aadiyay xilli Cabdi Lafta Gareen daaqada laga saaray isku daygii ay dowladda Soomaaliya ku minjaxaabisay maamulkii uu hogaaminayay Cabdi Lafta Gareen iyo sidoo kale isku day kol hore ay dowladdu doonaysay inay ku weerarto Axmed Madoobe labada isku dayba marka la isku daro dowladda waxa la soo warinayaa in ay qorsheynayso qorshayaal kale oo waaweyn maxaa xilligan ku soo aadiyay gaadiidkan cusub iyo askartan hadda tababarka loo soo xiray ee wasaaradda gaashaandhigga laga soo saaray maxaase ku soo aadiyay maalmo uun kadib markii uu iscasilay Cabdi Lafta Gareen iyo gaadiidkan hadda la soo saaray su'aalahaas jawaabahooda waxa laga sugayaa wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya laakiin khubarada arrimaha la socotaahi waxay leeyihiin wax walba ayaa la filan karaa maalmaha soo aadan in la maqlo oo ku saabsan gobolka Gado aan ku raaciyo shalay waxa hadlay taliye sare oo ka tirsan booliiska gobolka Gado oo dhanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya xiga wuxuu sheegay haddii gobolka Gado shaqaaqa ay ka dhacdo ciidamada ay ka weeraraan gobolka Gado ee gala xuduudda in looga dabageli doono taas hadalkaas oo dabcan loo arkay inuu ahaa mid sarbeeb ah oo lagu weerarayo shakhsiyaad markaasi ka tirsan dowladda waa dowlad goboleedka Jubbaland oo dabcan la xiriira dagaalkii balad xaawa ka dhacay kol hore in ciidamo ka tirsan kuwa Jubbaland ay galeen Mandheera kadibna ciidanka xoogga dalka ay dib uga soo laabteen sidaas si lamida gobolka Gado dhaqdhaqaaqa ka socda waa mid sareeya saacad walbana waxa laga cabsi qabaa dagaal halkaasi ka dhaca guud ahaan saaxiibayaal wararkeena intaas bay ku dhayihiin haday tahay kulkii kuugu horeysay ku soo bir channelkan waxaad heli doontaa wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacno aragtidaada qaybta commentiga inoogu reeb soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan sharaf iyo karaamo